munaasabad lagu daafurayay asaaska ciidanka debdemiska ee gobolka Togdheer ayaa maanta lagu qabtay xarunta maamulka gobolka Togdheer ee Burco. munaasabadaasi oo ay ka soo qayb galeen taliyaha ciidanka debdemiska Jamhuuriyadda Soomaaliland agaasimaha guud guddiga debdemiska ee heer qaran maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan ayaa waxa ugu horeyntiiba halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Ibrahim Aadan Qabyo Tire, barasaabka xigeenka gobolka Togdheer maayirka degmada Burco iyo sidoo kale waxgaradka gobolka Togdheer iyagoo dhamaantood u soo dhaweeyay asaaska ciidanka debdemiska ee gobolka Togdheer. debdemiskii gobolka Togdheer ayaynu maanta ku dhawaaqaynaa oo inoo noqonayo kow waan haysanay markii hore debdemis dabku waa aafooyinka laga subxaanalaysto adduunyadu bala siday ka leeday budgetkeedana way ku dartaa siyaasadeedana way ku dartaa asxaabtu markay tartamayaan debdemisku waxa weeyaan waxaysan ugu yahay nolosha bini'aadamka debdemiska gobolka Togdheer midnimada Burco maanta la asaasi maayo dhalinyaro xaqiiqatan halkaas soo fadhiyo heegan oo waliba anaga Hargeysa waxaan kaga duwannahay waxa laga yaabaa guli guurta wadada Hargeysa marwada la galay ku qaadato muddo dheer inta uu gaari karo waayo traffic jam baa jira dheer macquul laakiin magaalada Burco la yiraahdo wax traffic jam ma jiraan dhibaatooyinka inaga soo gaaray dhowrkii jeere iyo intii jeere dalku ka kacay magaalada Burco oo ganacsiyo badan ay ku adduunyay oo dad badan oo ku cayroobay maanta waxa weeyaan shaarkii ayaynu gashanaynaa aynu ku difaaci lahayn hantideena iyo magaaladeena iyo guryadeena. taliyaha ciidanka debdemiska Soomaaliland Axmed Sawaaxili agaasimaha debdemiska ayaa iyaguna ku dheeraaday marxaladihii kala duwanaa ee ay soo martay asaaska ciidanka debdemiska. waa taariikh maanta 24 bishan toddobaad Hargeysa sidii looga dhisay looga dhisayaa Burco haysu tashato luntooda iyo gacantooda haysu xidho. waxaan ku fakiray oo aan wadankan dib loo dhisayo wax ku darsado shaqadan aanu haynaa waa shaqo ku cusub wadanka runtiina u baahan samar laakiin debdemiska marka uu soo noqdo run ahaantii waxyaabo badan baa ku jira kow waxa ku jira badbaadada inuu rabno oo naf iyo maalba inuu rabno in la helo laba waxa ku jira shaqo abuur mar saddexaadka wax qabadka inuu dawladnimo iyo dadnimo aynu u baahannahay inaynu hiigsano ayaa ku jira. waxaa la yidhaha dabka kolley deriska xirnaa laakiin waxaa dabka la yidhahdo cadowga naqaana cadow dadku maaha waa adeegaheena asaasada debdemiskii Hargeysa waxaanu ku xigsanay inaan xaafadaha magaalada ku dhigno waxaanu ku xigsanay inaan gobolada dhigno waxa kale markaan kan maanta la yaqaanayo dhamaystiro haddana waxaa dhici doonta in xaafadaha la dhigo taabul saxnimo ilaa 7 habeenimo lagu tasaacado filayo gabagabadiina waxaa si rasmi ah loo dhagax dhigay goobta laga dhisayo xarunta debdemiska gobolka Togdheer.